marka hore mahad oo dhan waxaan u celinayaa ilaahay. ilaah ayaa mahadda iska leh. marka labaad waxaan u mahad celinayaa walaalaha meeshaan isugu yimid, ujeedadooduna ay tahay inay u gargaaraan oo garab istaagaan oo taakuleeyaan walaalahood gobolka hiiraan ay ku qabsatay dhibaatada fatahaadda biyaha. waxaan ka soo jeedaa oon ku hadlayaa jaaliyadda degta gobolka hiiraan ee reer Toronto. waxaan rabaa inaan baaq u diro walaalaha Soomaaliyeed ee naxariista badan ee la damqanayo dadkaas walaalahood ah muslimiinta ah ee gobolka hiiraan ay ku qabsatay dhibaatada fatahaadda biyaha. waxaan marka hore u duceynayaa qof kasta oo muslim ah oo gacan ka geystay. waxaan leeyahay ilaahay ha kugu bedelo wax ka khayr badan waxa aad qabatay. waxaan rabaa oo ujeedadeedu ay tahay in aan caddeeyo waxa aan inta halkan isugu nimaadnay oo ah in aan ahayn guddiga reer Toronto dhibaatada maanta jirtana u istaagay annagoo isugu jirno jaaliyadda hiiraan iyo dad ka baxsan jaaliyadda hiiraan oo u yimid inay gacan ka geystaan oo ay u gargaaraan walaalahood ay dhibaatada ku qabsatay gobolka hiiraan. waxaan leeyahay qof kasta oo ka soo qayb gala ama gobolka hiiraan ka soo jeed ama Soomaali ka soo jeed ama muslim ahaaw wixii aad qabatay oo khayr ah ilaahay wax ka khayr badan ha kugu bedelo. waxaan rabaa halkan inaan caddeeyo yaan nahay annaga meeshaan isugu nimaan. waxaan nahay dadkii dhacdooyinka marka ay dhacaan sidaan oo kale ah u imaan jiray ee abaabuli jiray ee tabarucaadda dadka ka qaadi jiray una gudbin jiray. waxaan rabaa in aan xuso taariikhda aan xusuusiyo 2 sano ka hor waxaa ka dhacday gobolka hiiraan fatahaad biyo oo aad dhibaato iyo xanuun iyo khasaare dad badan soo gaarsiisay. fatahaaddaas markii ay dhacday 2 sano ka hor waxaa ilaahay noo fududeeyey sida aan hadda ugu taagannahay inaan wax u qabanno in aan wax qabanno. waxaa noo suurto gashay magaalada Toronto inaan ay dadka ayna siiyaan oo aan ka aruurino oo ay ku tabarucaan walaalahood lacag gaaraysa ilaa 45,000 oo Canadian dollar ah. lacagtaas waxaan dadka uga soo qaadnay markaan ka soo qaadaynay ilaahay dartiis in aan u gudbino. ilaah ayaa ku mahadsan wuu noo fududeeyey. lacagtaasi waxaan gaarsiinay gobolka hiiraan annagoo u wakiilanay dad aan ku kalsoonnahay diintooda, akhlaaqdooda iyo dhaqankooda. kadib markii aan dadaal badan aan gelinay in ay u gutaan ammaanadaas sidii dadka ay soo bixiyey aan kula ballanay oo ahayd arrinka koowaad lacagtaas in la siiyo dadkii reer hiiraan ee dhibaatada soo gaartay ayaga oo aan loo kala soocin qabiilka ay u dhasheen, gobolka ay ka soo jeedaan, oo loo fiirinayo keliya ma tahay dad dhibaatadii ka dhacday fatahaadda biyaha ay saamaysay oo khasaare meeshaas ka soo gaaray. waxaan inta ilaah nala ogyahay aan xoogga saarnay in la siiyo oo aad iyo aad iyo aad aan ugu dadaalnay. mar labaad aan ku soo celinaa dadka dhibaatada gaartay qabiilkuu raba ha ka soo jeedo, haddii uu rabo xataa ha ahaado qof safar ahaa oo islaam ahaa oo markaas dhibaatada ay dhacday fatahaadda biyaha gobolka dhex taagnaa oo ay saameyn ku yeelatay. haddana waxaan idinka codsanaynaa walaalayaal qof kastoo islaam ah in aad ka qayb qaadato kaalmada walaalaha. maalinba gobolay ka dhacaysaa siduu nebiga noo sheegay calayhi salaatu wasalaam. dad qofka mu'miniinta ah waa hal jir oo kale. qayb ka mid a haddii ay dhibaato ay ku dhacdo qaybta kale ayaa la xanuunsato. marka haddii jirkaagii qayb ka mid ahayd ay dhib soo gaarto haddaadan wax ka xallin waxaan filaynaa xanuunka inuu ku soo gaarayo. marka waxaan leenahay walaalayaalow ka qayb qaata taakulaynta iyo gargaarka walaalihiin ee hadda gobolka hiiraan dhibaatada ku habsatay. ducadiinaan u baahannahay, gacantiinaan u baahannahay. annagana waxaan ballan idinkaga qaadaynaa insha allahu tacaala wixii aad noo wakiilataan ama aad noo soo gudbisaan inta ilaahay nala ogyahay in aan ku dadaalno dadkii loogu talagalay in ay gaarto. hadalkayga intaasaan uga baxayaa.
waxaa halkan horteyda korkayga aad ka arki kartaa haddii aad u baahan tahay in aad email transfer ama aad bangigaaga kusoo dirtid oo aadan soo gaari karin emailka kor ku yaalaan ayaa kaamarada qaban doontaa nambaradana meeshaas ku qoran ayaa la soo xiriiri kartaa intaasaan hadalkayga uga baxayaa wixii wanaag ahoo aan dhahayna ilaahay dartiis ayay ka imaadeen wixii qalad ahoo aan sheegayna ama aan ka gaabiyeyna nafteyda iyo shaydaanay ka imaadeen ilaah ayaan ka baryayaa in uu naga cafiyo nana waafajiyo wadada xaqa ah waa mahadsantihiin waxaan rabaa hadda inaan idiin gudbiyo nin ka soo jeedo beesha hiiraan oo warbixin idinka siin doono arrimaha meesha ay hadda marayaan iyo khasaaraha inta ay la gaareen waxaan kusoo dhaweynayaa walaalkay ugaas cabdikaafi sheekh ibraahim jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Toronto waxaan idinku salaanay salaantaas islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalayaal wax la og yahay la isaga ma sheekay inta badan waad aragteen meel walba ay ku qoran tahay meel walba laga akhriyay ummadda Soomaaliyeedna sidii aan Ilaahay dartiis uga rajaynaynay ka soo wada jawaabeen waana ku mahadsan yihiin dhibaatada magaalada Beledweyne ka dhacday wax la qiyaasi kara ma ahan wixii soo mari jiray wax ka badan soo maray magaalada Beledweyne meel ay biyo gelin oo ay gaarin guri aysan gelin ganacsi ayna gelin daare ayna jijibinin dhibaato badan meeshaas ka dhacday magaaladii waa laga wada qaxay sida ka warqabtiin labada dhinacana loo kala qaxay meelaha ugu laga heli karo inay daraay tahay oo qallalan tahay ayaa loo wada guuray ka dhibaatada baahadaas intaas la eg magaalada lagu noolaay oo Central Soomaaliya ku taalo oo u aheed meesha ganacsiga looga wada adeego mataqaanaa gobolada ku dhadhow aheed meeshaasi dhibaatadaas ka dhacday khasaare laha ka dhacay Ilaahay wuxuu keenay waa ku shukrinaynaa walaalaha Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan ka codsano sidii walaalkii iga xirooyay Xuseen Cumar uu sheegay inay ka qayb qaataan mataqaanaa yani wanaagaas iyo khayrkaas ay ka qayb qaataan walaalahooda dhibaataysan caruurtooda banaanka ay taalo dhibkaas uu ka dhacay inay u gurmadaan magaalada banaankeeda la degan yahay waa meel cidle geed lahayn geedka hoostiisa la jiifo harki meeshaas lagu wada joogo aanan lahayn musqulo aanan lahayn biyo nadiif aanan lahayn waa garan kartiin waxa ay dhan yihiin iyo dhibaatada meeshaas ka jirto intii ugu dambeysay wada maqlayseen 28 qofood ay dhimashada maraysay ummad kale oo badanna waa la laayahay oo aanan la hubin ilaa iyo hadda meel ay ku nool yihiin inay dhinteen bidnillaahi ilaahan u baryayna waxaan leenahay insha Allah taala ilaahaygi keenay ayaa wax walba iskale ilaahaygi qaatay kuwii dhintayna oo naqsaday asaga mataqaanaa yani ay u sugnaatay waa mahadsantiin insha Allah taala hadii ilaahay yiraahdo waxaan jecelnahay mar kale iyo mar labaad dhibaatadaas gaartay gaar ahaan magaalada Beledweyne in mataqaanaa ummadda Soomaaliyeed ay ka wada dhibtoodeen ay ka wada arkeen dhibaatada jirto inay mataqaanaa walaalahaas ay u gurmadaan waa mahadsantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan u mahadcelinaa dhammaan walaalaha ka soo qayb galay kulanka meeshaan isugu yimid ummadda Soomaaliyeed aad ay uga wada qeyriyatay mar walbana waxaan jecelnahay inaan sidaas ahaano garab aan isu wada ahaano wixii soo socdo masiibo in Ilaahay naga qabto insha Allah taala waada u mahadsantiin wabillahi tawfiiq walaalayaal assalaamu calaykum waraxmatullaah waxaan salaamayaa jaaliyadda Canada oo Soomaaliyeed gaar ahaan reer Toronto ama Ontario waxaan halkan u soo fariistay waxa waaye marba marxalada loo fadhiyaa horta hore kaamarada waayahan dambe waxa waa alxamdulillah rabbil caalamiin media fiicana helnay aan warka isku gaarsiin karno waxaan meeshan u fadhiyaa dhibaatada ka dhacday Beledweyne oo wadankeeni kamid ahaa waxaan leeyahay ama ogeysiinaya dhammaan community-ga reer Toronto ama reer Ontario in ay gargaarkan ama gurmadkan ay isku kala harin gaar ahaan waxaan xasuusinayaa Soomaalida in aan dhaqan u leenahay iyo diin ahaan inaanan kala harin dhib alla dhibkiina soo qabsadaba masiibada ilaaha keenay waa alxamdulillah rabbil caalamiin laakiin waa la isku fiirsanayaa dadka caaw inta nabadda ku qabo
waxa waaye ilaahay wuxuu ku tusinaa oo ku fiirinayaa sidee dadka walaalahooda oo caawa dhibaataysan oo biyaha ku dhex jiro caruurtooda biyaha uga dhex jiraan masaska iyo xaasiyada ku dhex jiro soo ma aragtay ee u istaagi lahaayeen oo ugu istaagi lahayn wax ula qaba lahaayeen annagu waana lagu imtixaanaan ku jirnaa qof walba Soomaaliya oo Canada joogo oo nabad haysto oo caawa raashin haysto oo firdijeer u buuxo waxaan leeyahay waa imtixaana ku jirtaa marka yaa lagu kala harin Toronto gaar ahaan yaa la masuugin lacag ma haysano iyo $100 ma awoodna yaa la idinka maqlin hal arko qaybta iyo kaalinta aan ka qaadanayna adduunweynaha dhan wuu kacay Toronto title-keedan raadinayna caaw waxaan meesha u soo fariistay anoo aaminsan reer Toronto reer Ontario reer Canada inay yihiin dad Soomaaliya dhaba soo waxaan leeyahay hal laga soo qayb galo gurmadkan jeebabka waa ka qayb galka ma aha hal soo banaan baxo jeebka waxa ku jira hal soo baxsho bishii way dhamaatay donationka hal la keeno gudiga hal la soo xiriiro emailada idin siiyeen telephone numberka meelaha ku dhigan waa la is yaqaanaa reer Toronto Xuseen ayaa madax ka ah gudigan waxa jooga Xalane Saadiq kulli waa la is yaqaanaa hal yimaado lacagta hal la keeno meel walba alaal meeshii la isugu tilmaamo tigidiyaan wadana masaajidka jiro axada oo lagu leeyahay qof walba haduu soo arkina waa tusayna caawo masaajidka IMO-ga axada ay jirtaa waana fundraising ma aha sheeko ma aha muxaadara waa fundraising for Beledweyne yaa mahir Shabeelle dadkii waxa waaye Beledweyne caawo biyaha waxay marayeen xaafad oo holwadaag la dhahayo aan waligeed biyo gelin marka waxaan leeyahay reer Toronto qaybtii aqaada laheedeen gaar ahaan aniga waxaan ku hadlaa magaca haweenka ama hawooyinka Toronto oo aad iyo aad aan ma aragtay oo amaanayo 99% waxaan leeyahay idinka u kici jirteen dadkiina dalkiina umadiina awlaadiina annagan in ilaahay awlaadan habeen walba xabada ku socoto noogu badbaajiyo bal ilmaha sirarka aan biyaha webiga kala tacaalo waa mahadsantiin